الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالقسط إن الله يحب المقسطين. waxaan is xusuusinaynaa cabsida ilaahay subxaanahu wa tacaala qof walboo naga mid ah maalinta qiyaame wuxuu hor istaagi doonaa ilaahay jalla wacalaa amaam allahi buu tegi doonaa ilaahayna wuxuu kula xisaabtamayaa qowl iyo ficil iyo ictiqaad wax alla wixii soo maray ayadoo wax la qarin karaa maalintaa ayna jirin ayadoo maalintaa cid dulmin ka dha ayna jirin maxkamadda dhabta ee cadaaladda ayaan hortegaynaa maalintaas inay xusuusteenna mar walba ku jirto ilaahay cabsidiisa inay mar walba qof walboo naga mid ah in si gaara loola xisaabtamayo asagoon jufo ka tirsanayn asagoon koox iyo urur diimeed kale ka tirsanayn asagoon gruub kale ka tirsanayn oo cidna aan lala xisaabinayn ee ilaahay uu leeyahay walaqad ji'tumuuna furadaa kamaa khalaqnaakum awala mara mid adinkoo abaa noo timaadeen sidii awalba aan idii abuurnay adinkoo midmida qof walba asagoo keligiisa ilaahay abuuray ilaahay jalla wacalaana wuxuu hortegayaa asagoo keligiis abuu hortegayaa asagoo keligiisana ilaahay la xisaabtamaya markaasaa qof walba ilaahay wuxuu mudan yahay marinaya intaa kadib kulankan akhyaarta madaxda xildhibaanada culamaa udiinka salaadiinta odayaasha iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ay fadhiyaan oo loo soo abaabulay in loogu baaqo walaalaha dirirtu ay ku dhex marayso deegaanada galmudug qaybo ka mid ah koonfurta iyo waqooyiga ama galbeedka intaba waxaan rabaa iyadoo la odhan doono kelimadii ku habbooneed oo akhyaarta badan ay dhihi doonaan waxaan rabaa walaalahaas inaan xusuusiyo dhiigga daadanaya ee macno darrada iyo xigmad la'aanta ku daadanaya waxaa ka dhalanaya adduunyada inta la joogo waxaa ka dhalanaya cuquubo ay ka mid tahay abaar iyo cudur iyo dagaallo weligood aan dhammaan ilaahay wejigiisa markii la tagana ciqaabkii aakhiro oo intaa kasii ballaaran baa ka dhalanaya waxaan rabaa anigoo ku biirinaya halakan dadka fadhiya ee akhyaartaha codka ay jeedinayaan anigoo codkayga ku biirinaya oo magaca culummadana ku hadlaya walaalaha dirirtu dhex marayso oo deegaanada ay ka mid tahay huldoon yaale iyo xanan buuro iyo deegaanadaas walaalaha dirirtu ku dhex marayso oo dhibaatada meesha xun marayso dumar xataa in la dila maraysa dhibaatada gaadhay waxa ay ku dirinahayaana ay tahay deegaan iyo daaqsin iyo wax ku salaysan ay tahay xuquuq kaloo la kala hayaana ayna jirin waxaan rabaa walaalahaas inaan idhaahdo fattaqullaha wa aslixuu daata baynikum ilaahay ka baqa islaaxa waxa dhexdiinna yaalla inaa hagaajisaanna ka shaqeeya haddaydna saas yeelinna waad ka qoomamayn doontaan maalin qoomamadu aysan waxba tarayn ama adduunyada dhexdeedaba ah ama aakhiraba ah oo shallaytooda ay waxba tarayn dagaalada dadkii soo wadi jiray oo intaasoo sano soo dirirayay maanta wax ay ka hayaan oo aan diin la'aan adduunyo la'aan dad la'aan aan ahayn ma jiraan ciribta dagaal sokeeye dagaal muslimiinta dhexdooda ah ee aan gaalo lagula jihaadayn ciribtiisuna khasaare adduunyo iyo mid aakhiray kusoo gabangaboobaysaa baaqa ugu dambeeya ee halakan aan ka jeedinaynaa wuxuu yahay dad ahlu tawxiida oo muslimiina oo dhiiggooda uusan isku bannaanayn baa tihin oo dhiiggooda ilaahay uu kala xarimay baa tihin oo kabaa'irta ay ka mid tahay waaweynka waxyaabaha aad samaynaysaan shirki ilaahay jalla wacalaa loo shariig yeeloo gaalnimo ah waxaa ku xiga naf xaq la'aan lagu dilo biqayri xaqin naf lagu dilo ayaa ugu weyn shirkiga markii laga soo reebo kabaa'irta ayadii baad ku jirtaan ilaahay ka baqa naftiinnana u daneeya dadka ducafada ah oo masaakiinta ah oo daaqsinta iyo taagtooda ay tahay ariga iyo ubadka ay wataan inay daaqsadaan ay tahana ha fasaadinina wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum culamaa udiinka xildhibaanada odayaasha dhaqanka dhammaantiin waan salaamayna assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh salaan kadib waxaanu halkaan ka jeedinaynaa baaq nabadeed
oo ku aadan dagaalka ka soo cusboonaaday deegaanada galmudug khaasatan midkii u dambeeyay oo dhacay 10kii bishii 11aad oo ka dhacay meesha la yiraahdo Huldoon Yaale oo dhex maray laba beelood oo walaalo ah oo diin ahaan iyo deegaan ahaan intaba walaalo ah waxaanu leenahay walaalayaalow dagaalka joojiya maamaya Soomaaliyeed jirto oo tiraado dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho walaalayaal waxaan leenahay ilaahayna uga baqa naftiina iyo maalkiina halakaynina deegaankana ha fasahaadinina wax ka soo baxaya haba yaraatee ma jirto dagaalkaasi waa dagaal micno darro ah waa dagaal aan hadii ilaahay qadaro wax uu haba yaraatee uu wanaajinaya aysan jirin ayadoo dadkii dhiman la ay ku dhintaan oo maal ku baabao oo hanti ku baabado ayaa kadib la heshiin doona insha Allah waxaanu leenahay heshiiska maanta wanaagsan yahay maanta qaata intii dhimatana waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto intii ku dhaawacantana waxaan leenahay Allah u booga dhayo annaguna hadii ilaahay qadaro waxaanu diraynaa odayaashii dhaqanka reer mudug hadaan nahay waxaanu diraynaa waa baaq nabadeed wixii ficilana insha Allah hadii ilaahay inta uga harimayno wax allaaliyo wixii karaankeenna oo nooga aadana waa ka qayb qaadan doonaa hadii ilaahay qadaro degdegna waa u bixi doonaa insha Allah waxaana kale ugu baaqaynaa dadka mas'uuliyadda wadanka ka haya oo maamulka mas'uuliyadda u haya arintaasi waxay u baahan tahay faragelin toos in lagu sameeyo in ciidamo la kala dhex dhigo in aan la daawon dadkaasi hadii ilaahay ma isdilayo oo walaalka ah aad iyo aad baan hadii ilaahay qadaro uga xunahay runtii waana jeclaan lahayn saacadan in ay ku dhex jiraan ciidamadu oo hadii la qadaro dadkaasi la kala dhex galo waayo waxay Soomaalidu tira laba dirirta isma daawayso dadka shaydaan baa ka qaalib noqday ma ahane kulligoodu way garanayaan dhibaatada ay leedahay arintaasi waxaan leenahay walaalayaal waana ka codsanaynaa xabadda joojiya assalaamu calaykum waraxmatullaahi ila muhammadin sallallahu alayhi wa sallam amma ba'd waxaan salaamayaa marka hore khiyaarta ka soo qayb gashay xafladatan baaqa la jeedinayo culamaad diinka salaadiinta xildhibaanada odayaasha nabadoonnada ganacsatada khiyaarta ka soo qayb gashay dhammaantiin waan salaamayaa salaam ka bacdi waxaanu u jeedinaynaa baaq nabadeed walaalaha ku diriraya galmudug meelo ka mid ah sida Huldoon Yaale iyo Xanan Buuro waxaanu leenahay walaalayaal dagaalka joojiya 40 sano soo wadnay wax nooga nusqaama maahane wax noogu siyaada ma jiraan dadkii fiicnaa baa dhamaanaya dadkii bilmigeeyada baa dhamaanaya qofba qofku ka daran yahay baa ku dhimanaya waa xaq darro adduunkana waa khasaaro aakhirana waa cadaab iyo caradi ilaahay marka waxaanu leenahay dagaalka joojiya dhexdeena wanaag ka sameeya baaqyada la idin dirayo qaata qalbigeena Allah ku xasiliyo Allah idin hanuuniyo wax aad ka keenaysiin dagaal intaasoo la waday kuwa idinka horeeyana kama keenin kuwa idinka dambeeyana ka keenmayaan dagaal khadra weey qofkii qof islaam dilaana inta ilaahay u yabahay buu helayaa sidii sheekhu noo sheegay cadaab lagu daahiyo oo lagu waariyo aan laga bixin calaal loo ku dhacda ciqaab oo dhan baa isugu dhacaya wax ka daran ma jiraan war dagaalka joojiya walaalayaal dagaalka joojiya adinka inta ayaan leenahay dawladda maamulka galmudug dhibaatooyin badan baa jira waxa moodaa wax badan inay ka gaabiyeen waxaanu ku boorinaynaa oo leenahay oo ka codsanaynaa in ay u istaagto hawlahaas oo ciidamo la diro oo la kala dhex galo oo wax laga qabto dhibka jira dhibka hadii dadka lagu fiirsado yaa la xukumayaa yaa madax loo noqonaya dawlad loo noqonaya waa sheegin marka waxaanu ayagana ka codsanaynaa oo dawladda leenahay u istaaga oo ciidamo u dira oo hala kala dhex galo dadkaas ayaguna dagaalka joojiyeen wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ardayalka dhaqanka culummada xildhibaanada ganacsatada dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka meeshan waxaan isugu nimid maanta baaqjeedin dhibaatada ka soo cusboonaatay deegaamada galmudug oo ay ka mid tahay Huldoon Yaale oo ay ka mid tahay Xanan Buuro
oo ka horreysay waxaan codsanaynaa dhammaan anoo ku hadlaya odayaalka dhaqanka oday ka mid aan ahay waxaan codsanaynaa in la joojiyo dagaalkaas. dagaal waxaa la yidhi wiil kuma dhashay wiilaa ku dhinta waa colaad aad iyo aad u foolxumo badan. shala kaliya dadka dhintay caadi maahan, dhaawac baa jira, dhimashaa jirta. kuwa dhintay allahu naxariistaan leenahay, kuwa dhaawacana ilaahay hau bogadhayo. dagaalkaas ragga ku howlana waxaan codsanaynaa inay joojiyaan. odayaalka meesha jooga waxaan ugu baaqaynaa dagaalkaas inay joojiyaan oo ay ka hor tagaan. dhallinyarada meesha ku dagaalamaysa gabdhaa ku dhintay, wiilal baa ku dhintay, hooyooyina guryahoodii loogu galay. dhibaatadaas marka waa dhibaato aad iyo aad u falxo badan. galmudug waxaan leenahay inay hawshaas ay wax ka qabato intii karaankeeda. haddii dadka laysku fiirsado oo aan laga gaarin dhibaatadu waa kasii badanaysaa. inta waxaan codsanaynaa arrintaas inay tilaaba ka qaadaan oo ciidamo la kala dhexdhigo. dhammaan waxaan leenahay reer galmudug ha u istaageen dhibaatooyinkaas soo cusboonaada meeshaas yaan laysku fiirsanin. haddii laysku fiirsadan waxaa dhacaysa inay inta kasii ballaaraato, deegaamadu ay intay kasii bataan. meelo badan baa shaqaaqooyin kale laga sheegayaa. waxaan codsanaynaa in la joojiyo dagaalkaas. waxa weeye wiilasha ku dhima annaga naga dhimayaan, gabdhaha ku dhimanaya sidoo kale, odayaalka waa ku dhimanaya iyaguna sidoo kale. in la isbeegsadaa aaday u xun tahay, ha laga waantoomaan leenahay. waxa lagu diriraya waa dhul weeye, dhulkuna meesha ka guuri maa. dadkana dhulku waa uu qaadaa. aad iyo aad u tiro badan yihiin, deegaamada galmudug u tiro badan yihiin. markii aad u fiirsatana dhulku waa iska babanaaya, wax degan lama arko. meelaha yaroo laysaga dhowdhowya waxaa laga yaabaa in laysku qaqabsado. war ilaahay ha laga cabsado, war waxaan dhibaatahayn laga heli maayo. ha la joojiya dagaalkaasaan leenahay. dhinacyada isku haysta waxaan codsanaynaa in baaqaas aad aqbali doontiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. warkii waa la sheegay, baaq nabadeed weeye. waxaan iskugu nimid, waxaan ka xunnahay dagaalka ayaamahan soo yeeryeerayo la sheegayo. galmudug waxaan u malaynayay inay ka gudubtay dagaal iyo wixii macno darro ahaa. dowlad baan dhisannay, dhulkaanu nagana badan, bad iyo berri waa haysanaa. hadda dagaalku inuu socdo markaan runtii waa ka xunnahay, umana aanna malaynayn. waxaan la qabaa raggii culummada ahaa iyo odayaashii hadlay dagaalka in la joojiyo, sharuud la'aan laga joojiyo. waa naga badan yahay sidii la sheegay dhulku. annaga dad kalaan usii baahannaa runtii. marka waa micno darra dagaalkaasi, ha la joojiyaan ku baaqaynaa. haddaan nahay odayaashii gaalkacyo ama mudug, dagaalkaas ha la joojiyo. laga sheegayo meelaha xananbuure iyo midka hadda ugu dambeeyo aad iyo aad aan uga xunnahay, oo meel la yidhaahdaa maxaa la yidhahdaa huldoon yaale. markii aan arkay waa garan waayay runtii. marka waa laba beelaa oo walaalaa, weliba mudug bay ka tirsantahaan jeclahay meeshaasi. waxaan ka codsanaynaa dowladda galmudug inay ciidamo dhex dhigaan meeshaas, oo ciidamo la dhex dhigo, oo dadka hubaysan hubka laga qaado, oo lala safta kuwa laga gardaran yahay. ha la joojiyaan leenahay. waa ka xunnahay, aad baan uga xunnahay. ha la joojiyo dagaalkaas. wasalaamu calaykum waraxmatullahi. kuwa galmudug iyo kuwa degmada ah intuu waa joogaan dhammaan iyo saxaafadaba. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. salaan bacdigeed, sida loo sheegay, waxaan saakay shirkaan isugu nimid jaraa'id arrin aan aad iyo aad uga xumaannay, dagaalada ka soo cusbaanaa.